Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa muuqaal kale maalin kale qurux badan. Waa walaalkiin oo maskiinkii alle. Waxaan rajeynayaa inaan caafimaad qabto sida aniga caafimaad qabo. Alxamdulillaah, Ilaahay maanta soo sugnaatay. Waxaan ku wada salna xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Intaa kadib maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay magaalada la yiraahdo Boros. Fadlan intaada muuqaalka u sii gudagelin haddii hore noola joogtay like inoo saar. Haddii halkan ku cusub tahayna nagu soo biir ama ahsantiin. Magaaladan Boros waxay ku taal dhinaca koonfur galbeed ee hodanka ku ah roobabka ee dalkan Sweden. Boros waa magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Västergötland, ayadoo ay ku nool yihiin 114,000 oo ruux. Dhulkan wuxuu ka kooban yahay dooxooyin jexjeexan oo buurley ah. Qayb weyn oo ka mid ah waxaa ku daboolan kayn. Aaggan ay magaalada ku taal wuxuu kaloo qani ku yahay harooyinka. Magaaladu waxay caan ku tahay taariikh ahaan warshadaheeda dunta oo gaarin heerkooda ugu sareeyay qarnigii 16aad. Magaaladan waxaa aasaasay boqorkii xilligan jiray. Ujeedada ugu weyn waxay ahayd ugu horeyn in la sharciyeeyo ganacsiyada kala duwan ee dalkan oo dhan si ay boqortooyada dakhli canshuureed ugu hesho ganacsiga ka socda deegaankan iyo waddanka intiisa kaleba. Dabcan inta aysan magaalo noqon, ganacsatada kala duwan ma bixin jirin canshuur, taas oo ka xanaajisay ganacsatada ku nooleed magaalooyinka ku dhow iyo boqortooyadaba. Sabab kale oo muhiim ah ayaa ahayd in saldhig military looga sameeyo ciidanka waddankan, maadaama galbeedka Sweden ay ahayd halka marin keliya ay gacanta ku haysay, kaa oo ah weliba mid cariiri ah. Haddii kale galbeedka waddankan oo dhan waxaa gacanta ku hayay waddanka Denmark. Labadan waddan waxaa ka dhexeeya xifaaltan aad u gaamuray, inkastoo hadda sidii hore uusan ahayn. Boros waxaa kale oo ay caan ku noqotay shirkadaha wax ku dira isgaarsiinta boostada, kuwa oo maanta loo yaqaano e-commerce ama ganacsiga internetka. Shirkadahaas waxaa ka mid ah NetOnNet, Ubex, Elos, Rowells iyo qaar kaloo badan, kuwa loo arki karo kuwii bedelay ganacsatadii hore ee deegaanka. Magaaladan sidaas darteed ayaa loogu wacaa magaaladii dunta iyo ganacsiga. Halkan waxaa ku yaalo dhowr kuliyad oo waxbarasho, sida kuliyadda waxbarashada ee dunta, kan maktabadda, kan guud iyo qaar kaloo badan. Marka laga soo tago halka ay kaga taalo gobolka, gaadiidka dadweynaha ayaa si fiican u shaqeeya. Waxayna leedahay dhabo tareen, wadooyin gaari oo waaweyn, kuwa isku xiro magaalooyin waaweyn sida Gothenburg iyo Jönköping, magaalooyinkaas oo aan horay muuqaal uga sameynay. Midda muhiimadda dheeraadka siinaysa ayaa ah garoonka labaad ee diyaaradaha ee waddankan ugu weyn, kaa oo u dhexeeya magaaladan Boros iyo Göteborg ama Gothenburg. Deegaan walba ay muslimiintu joogaan, Soomaalida waxa ugu horeysa waxaa lama huraan ah inay goob cibaadada lagu ooga samaystaan. Masjidka magaaladan Boros ayaa la furay bishii Luulyo ama 7aad sanadka markuu ahay 2008, waana qayb ka farcamantay masaajidka Bellevi ee Göteborg ama Gothenburg, taa oo aan muuqaal hore ugu sameynay. Waxaa jiran goobo badan oo aad booqan karto mar haddii aad joogto magaaladan Boros, laakiin waxaan kugula talin lahaa in aad booqato beerta xayawaan ee magaaladan caanka ku tahay. Dabcan muuqaal aan ayadana ka sameynay ayaa ku jiro janaalka, daawo haddii aadan hore u daawan.
ku mahadsantahay marba haddii aad intaan nala soo gaartay. Fadlan muuqaalka laag inoo saar, naguna soo biir haddii aadan nagu soo biirin. Mahadsanid. Intaan muuqaalka xigo ku kulmayno waxaan kaga tegayaa amaano Allah.